السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أونكسن داود يالكسو دوادا وركي عالمك وإذن كيجي من يستوديها كوباد التلفزيون كأريال إما جلده هرجيسة وحنا وركي لسه حسين يعني جوا محمد مرق ورسمه قد بدأ جوا وين وركع وحكمدا قدومي كحجين كوباد جلها وكيلة الصوماليين مدني أحمد ياسين الشيخ علي أيانله ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay in aanu dhageysan talooyinka siyaasiyiinta aadka ugu dhow kuwaas oo walaac ka muujiyay wasiirka caafimaadka Soomaaliya ayaa ka hadashay warar lagu baahiyay warbaahinta kuwaas oo sheegaya in 30 qof ay ku dhinteen isbitaalka Martini kuwaas oo u geeriyooday cudurka COVID-19 wasiir Foosiya oo arintaasi ka hadlaysa ayaa waxa ay tiri xildhibaan Cabdiraxmaan Jaamac Xoog oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku eedeeyay in uu kala qaybinayo shacabka gobolka Awdal waxaanu sidaasi ka sheegay munaasabad maanta xisbiga wadani uu ku qabsaday magaalada Hargeysa gudoomiyaha xisbiga wadajir ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa shacabka magaalada Muqdisho ugu baaqay in ay si mug leh uga qayb qaataan barnaamijka ay cilaamiyeen midowga musharaxiinta dalkaasi gudoomiyaha xisbiga Ucud Injineer Ali Quraabe ayaa maanta dib u qaatay kaarkii codeynta kadib markii uu ka lumay kaarkii hore ee codeyntu dowladda Nigeria ayaa sheegtay in ay ilgaara ku hayso dhammaanba xuduudaheeda si ay ula tacaasho dadka lagu tuhumayo inay qabaan cudurka Ebola badweyntii isku bedeshay saxaraha qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaa ku daawan doontaan warka caawa ee telefishinka Ariel